ugu horeyn ilaahay mahad leh waad runtii waxaan mahad celinayaa isduuyaasha ama maamulayaasha wasaaradaha kala duwan ee runtii ka soo qayb galay kulankan waa kulankii bilaaha ee isduuyaasha ama wakiilada wasaaradaha dowladda dhexe runtii u jooga degmada kulankaas oo muxuu ahaa si bilaah noogu qabsooma waxaa jirta runtii wasaarado badan oo imika ay wakiiladu runtii soo kordheen waxaa ilaahay mahadiya muddadii aanu joognay maamul ahaan in 6 wasaaradood ay wakiilo runtii degmada ku yeesheen oon hore u jiri jirin maadaama intii muhiimka runtii ay qabsoontay dhowr wasaaroodna ay dhimeen waxa markaa muhiim ah in kulankiisa duwayaasha oo aanu sameeyno golaha deegaanku muxuu ahaa ansixiyay in habraacii shirarkiisa duwayaashii maamulka degmada runtii la sameeyay qaabkii uu qabsoomay waxay kala duwan ay runtii ka soo qayb galayaan si bilaa runtii inuu runtii qabsoomo ereygan isuduwid runtii waxa lagu qeexaa xiriirin ama iswaafajin isku xidhid shakhsiyaad laamo ama waaxiyo hay'ado institutions inay ka wada shaqeeyaan runtii gaadhida ujeedo laga midaysan yahay ama hadaf runtii danguuda waxa sidoo kale lagu macneeyaa isku habeynta ama isku dubaridka hawlqabadka iyo go'aamada runtii hay'adaha si loo gaadho yoolalka la beegsanayo waxaana tirdhaxad u tahay runtii habsami socodka hawlqabadka runtii hay'adaha bulshada runtii u adeegaya ama hawl muhiim runtii u qabanaya waxay keentaa runtii wada shaqayn xoogan waxay keentaa runtii maamul wanaag marka ereygaas macnayaal badan buu leeyahay muhiimaduna waxa weeyaan in la gaadho hadaf runtii danguuda ama yool la lahaa runtii si wada jira runtii looga gaadho sida uu nafarayo xeerku aynu ku shaqeynay maamulka gobolada iyo degmooyinku isduwayaasha dee wasaaradaha waxay hoos yimaadaan maamulkii degmada nidaam ahaan iyo wasaaradooda ka tirsan wasaaradaha qaar maamul daadashin bay runtii sameeyeen oo waxaa muxuu ahaa maamulada degmooyinka iyo ama muxuu ahaa maayarada 23 degmo doorasho waxaanu ka kulanay sida wasaaradda waxbarashada kale inay maamuladii wixii heer degmada toos runtii nagu soo wareejiyaan waana nidaamka maamul daadashinta marba ka dambaysa runtii la sii daadajinayo si adeegii bulshada uu wada gaadho degmo ahaan iyo ilaa heer tuulo runtii aad iyo aad baan runtii idinka mahad celinayaa kulankani wuxuu noqon doonaa kulan si joogtada u socda sidii caadiga ahayd oo bilaa wasaaradaha kale maqan runtii aan ku lahayn wakiilada degmadana waxaan rajeynayaa in si degdeg runtii ay u soo magacaabaan runtii waraaqana waan u qornay waxa kale iyaduna runtii muhiim ah in wasaarad waliba runtii xafiiskii degmada runtii ay furaan anaga wax naga diyaara dhulkii laga dhisi lahaa runtii ama laga hirgelin lahaa waxa fiican in xafiisyadii iyo xarumahoodii runtii ay furaan si muxuu ahaa u hirgashada maamul daadashinta la sameeyay la heer degmo aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin oo wax shaqadii runtii wanaajinaya waan idinka mahad celinayaa saa runtii waqtigiina aad u soo siiseen xogihii iyo informationkii runtii wadaagnay waxaa jira dhowr xubnood oo runtii maqan isduwayaasha iyagana waan runtii inay xoojiyaan wada shaqayntii kulankan baa runtii muhiim ah waxaana ku suurtagelaysaa wada shaqayntii in aynu si joogta hadda warbixintii u kala qaadano oo annaga haddaan wakiilkii wasaaraddu si toosa noogu xidhnaanin waxaanu xaq u leenahay de inaanu ribood qorno oo aanu wada shaqayntii si joojino filin ahaan wasaaraddan aanu u sheegnay in cid xilgudasho leh oo mas-uuliyadda qaban karta ay noo keenaan ilaa intay keenayaan aan wada shaqayntii si joojinay taasina waa mid daqiiqad keliya tahay go-aan ku qaadan karaan inay qofku habboon la ka haynaan markaa wada shaqaynta ay xoojinaan runtii waa muhiim aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii waxaad tihiin intiina ka soo qayb gashayna raggii dee xilkas kahay mas-uuliyadda weyn runtii iska saaray shaqooyinkooda saasaan inagu xidhantay asalaamu calaykum waraxmatullahi